السلام عليكم saaxiibayaal waa in salaam soo dhawaad u soo noqod wanaagsan haddii ta markaad kuursi channel ku soo dhawo fadlan subscribe saaro gambaalkana furo si muuqaalan soo dhiga ku soo gaaraan haddii aad horey noola joogtay waa ku mahadsan tahay muuqaalka like saar si dad badan uu gaaro magacaygu waa Gamaadid waxaana joogaa Qobrus ama Cyprus weliba qaybta Turkiga muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay su'aalo badan oo dhankiina ka yimid dabcan oo ay soo weydiisteen in Qobrus laga tahriibi karo ma laga bixi karaa meeshaan haddii ardaynimo ku meel xagga ma tagi karaa in qaybta kale loo gudbi karo intuu qofka qaybtan imaado waxyaabo badan oo asaas ku saabsan ayaad soo weydiiseen waxaan rabaa muuqaalka inaan idinku caddeeyo wixii macluumaadkaas aan ka hayo oo idin kula wadaago soo dhawaada muuqaalka dhamaysa ilaa dhamaadka si aad u heshid macluumaadka faahfaahsan marka ugu horeysa horta haddaadan ogeyn Qobrus waa laba qayb waa qaybta Turkiga iyo qaybta Greece waa North Cyprus iyo South Cyprus waa qayb koonfur iyo qayb waqooyi qayb waxaa maamusha Turkiga waa qaybta ani aan joogo qaybna waxaa maamusha Greece waa qaybta Yurub ka tirsan oo qaybta weyn ah oo la aqoonsan yahay oo European Union ku jirta qaybtan kale waa qayb yar waxaa yaqaan bas ama aqoonsan Turkiga dabcan nolosheedu way fiican tahay waxbarashadeedu way fiican tahay intaan arkay waa ka helay waa ma sha Allah haddii ay imaanayso ku soo dhaweynaya ku leeyahay laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay qofka duu meeshan imaado qaybtan Turkiga qaybta kale ma gudbi karaa qaybtaas Turkiga qaybta kale ee Greece dabcan maxaa yaalo dabcan qaybtan qofka markuu imaado ardaynimo ayuu ku imaanayaa markuu ardaynimo ku imaado waxaa loo xareynayaa jaamacad admissionka jaamacadda ayaa loo soo saarayaa kadib markuu admission jaamacadda loo soo saaro tigidhkiisa soo jarnaya wuu soo baxayaa wuxuu imaanayaa Qobrus ayuu imaanayaa qaybta Turkiga laboorka markuu imaado fiisihiisa waa on arrival markuu halkaas kasoo qaato oo qaybtan uu imaado hadduu wax rabo inuu barto wuu baranayaa waddankan ayuu degayaa oo jaamacadiisa ayuu dhiganayaa hadduusan rabin qaybta kale waa loo gudbin karaa oo waxaa jiro qaab loogu gudbiyo dadka qaybta kale ee Yurubta ah oo Greece ah qaybtaas kale waxaa jira marka laba waxyaabood dabcan waa qaxootinimo oo qofka qaxootinimo ayuu isku dhiibayaa laba qayb ayuuna qofka isku dhiibi karaa wuxuu isku dhiibi karaa in qofka loo dacwoodo oo tusaale haddii Yurub ay ku jiraan dad familkaaga ah ama qof ku dacwoon karo inaad isku dhiibtid da'yar kadibna Yurubta lagaaga dacwoodo oo dad badan isku baxa way jiraan midda kalena waxay tahay in qofka uu isku dhiibo qaxootinimo oo meesha sharcigeedu uu sugo kadib sharcigeeda hadduu helo sharci Yurub aad ku aadi kartaa lagu siinaa dabcan markaa sharciga qaadatid Yurub ayaad ku aadi kartaa waa ku safri kartaa meesha aad ku aadi kartaa waddanka waa ka bixi kartaa waa ku soo laaban kartaa waa ku shaqaysan kartaa xaquuq ayaa leedahay marka labadaas qayb ayaa la isku dhiibaa in qofka da'yar isku dhiibo oo looga dacwoodo Yurubta oo looga qaado iyo sidoo kale in uu isku dhiibo sida caadiga qaxootinimo oo magangelyo la siiyo meel uu dega la siiyo ceyrtiisa uu qaato kadib sharciga uu sugo sidaas darteed waxaa marka loo sameynaa qofka sharcigiisa sugaya calafkaada qabtaa intuu kugu qaato 6 bilood hal sano marba si waaye marka sharcigaada qaadatid oo sharcigaada heshidna dee waxaa waaye waa shaqaysan kartaa xaquuqaad leedahay waa safri kartaa Yurub aadi kartaa meesha arta aadi kartaa marka labadaas qayb ayaa loogu gudbaa meeshaas oo marka qofka qaybtan uu imaado Turkiga qaybtaas kale Greece sidaas ayaa loogu gudbiyaa waxyaabahaas ayuuna la kulmayaa waxaan filayaa intaas inay ila fahanteen midda kale muhiimka waxay tahay sidoo inta ku imaan lahaa marka koobaad waa idin sheegay ardaynimo ayuu ku imaanayaa qaab kale loogu imaado way jiraan waa qaab adag laakiin midka ugu fudud oo ugu fiican waxay tahay ardaynimo in qofka jaamacad loo xareeyo kadib jaamacaddaas markuu ku imaado qaybtaas kale loo gudbiyo marka jaamacadda ku imaanaysid warqadda ogolaanshaha inaad heshid waa admissionka jaamacadda muuqaalo badan oo ka sameeyaa jirto saa inta ku imaan kartid oo fiisaha ku heli kartid warqadda ogolaanshaha ku heli kartid waxyaabahaas dhan muuqaaladan soo daawo halkaas ayaad ka heli doontaa sidaas darteed qofka marka koobaad waa admissionka inuu helo markuu admissionkiisa helo kadibna tigidhkiisa ayuu jaranayaa warqadaha kale ee looga baahan yahay ayuu raadsanayaa oo uu samaysanayaa wixii form oo loo baahan yahay mar walba qofka kuu shaqeynaya agency-ga ayaa mataqaanaa kaa caawinaya oo kuu sameynaya haddii u baahantin ani kaa caawiyo agency ayaan u sameeyey ama shirkad ayaan u sameeyey ka shaqeysa waxyaabahaas oo la yiraahdo Gamaadid Solutions waxayna kaa caawinaysaa waxyaabahaas oo dhan helidda admissionka sidoo kale macluumaadka u baahanta inaad heshid sidoo kale waxay kula ogaanaysaa safarkaaga wixii aad u baahan tahay ama ha noqoto form la buuxinayo ama ha noqoto wax walba oo fududeyn kara safarkaaga si aad wax dhib ola kulmin jaamacadda iyo immigrationka sidii la isugu xiri lahaa oo dhaatadaada ama macluumaadkaaga loo dhigi lahaa immigrationka si hadhow markaad u imaadaba uu kaaga soo horeeyaba magacaaga uu kaaga horeeyo meesha sidoo kale markaad xagga kasoo bixaysid waddankaaga kasoo bixaysid meel walba aad kasoo bixaysidba in la isku xilo airline-kaaga ama diyaaradaada iyo jaamacadda diyaaradaha qaar sida Turkish Airline oo kale diyaaradaha kale ma ogi qaarkood inay sidaas ay qasab tahay laakiin Turkish Airline oo kale magacaaga waa inuu airport-ka yaala aad kasoo bixaysid waddanka ama Kenya ha noqoto ama Xamar ha noqoto meesha kasoo bixaysid waa in airport-kaas magacaaga uu yaala
taas waxaa lagu samayn karaa marka in la isku xiro diyaaradda iyo jaamacadda email loo diraya oo la leeyahay ardaygaas ayaa soo baxaayo marka u sheega diyaarad hebel ama Turkish Airline in ardaygaas arday sax uu yahay oo jaamacaddan ay aqbashay ardayna uu yahay sax marka sidaas ayaa la isugu xirayaa wax walbo waa process yar adag qofka aanan aqoonin uu ku yar dhiboonaya laakiin shaqadanada waxay tahayba ama Gamadi Solution shaqadu ka shaqeeya waxay tahay inuu qofku ka caawiyo wax walbo oo ardaygu ku wareerayo ama adag ama looga baahan yahay inuu maro sidoo kale hal qodob oo kale oo muhiim ah ayaa jira qofka marka loo xareynayo admissionka oo jaamacadda loo xareynayo jaamacadda deposit ayay bixisaa ayaa la bixiyaa dabcan oo ardayga laga qaadaa oo hal semester lacagtiisa camal oo horumarisa depositkaas markaad bixisid ayaad heli kartaa admissionkaaga dad badan oo waxaa jiro arday ah oo ku dhahayo jaamacadda depositkeeda iga sii dabar markaa imaadaan ku siinaya waana mid aanan soconaynin meel aad ka helaysan aysan jirin sababtoo adiga wixii rabo arday ah adaa lagaa rabaa inaad samaysatid wixii ayaga ahaa oo ah inaad admissionka jaamacadda aad la baxdid qof ma jiro kaa bixinaya warqadda admissionka kadibna oo wadanka ku keenaya si bilaash ah marka taas wax shaqeynaya maaha mentality oo qaldan waaye marka in dadka iska waantooban iskana dhaafan ayaan jeclaan lahaa admissionkaaga lacagtiisa inaad adi la baxdid waayo agency kuu shaqeynaya commissionkiisana aad iska bixisid waayo kadibna saas ku imaadid midda kale xigtana waxay tahay inaad dadka aamintid haddaad dhahdo qof ma aaminayo waxana waan rabaa adduunkan wax kuu suurtagalaya badan ma laha waa inaad qof aad aqoon aad aamini kartid sababtoo dadka isku mid ma ahan qof waxaa jiro xun iyo qof fiican waa jira marka haddii hal qof oo xun aratay inaad dadka dhan wada ma aaminayo aad dhahdid waa wax laga fiican yahay marka waxaan kula talin lahaa haddii wax lagu sameynayo inaad qofka aamintid oo ku kalsoonaatid waa qodob aad muhiim u ah si ay wax kugu hagaagaan marka haddii waxyaabahaas inaa u baahan tahay in laga caawiyo admissionada imaanshaha meeshan iyo processkaas oo dhan Gamadi Solution ayaa kaa caawinayo lambarada shaashada saaran nagala soo xiriir ee WhatsApp-ka iyo sidoo kale Instagram-kayga aad baa ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka inta dii aad soo gaartay waa kaaga mahad celinaya channelka dii aad weli subscribe saaranin waxaa sugaysid ma ogi subscribe saaro aad ayaad u mahadsantahay gambaleelkana furo si fariinta ay kugu soo dhacdo mar walba muuqaal aan soo dhigo muuqaalka haddii aad ka heshay like saar haddii aadan ka helin muuqaalka weli like saar wixii fikir fariin aan nooyaysidna commentiga noogu reeb intaan ku kulmayna muuqaalka xiga waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo halkan saarana soo daabo waa vlog aan ka sameeyo Qobros ee gobolka Xis magaalada